wuxuu labadii ijiin ee min lixda bastoon ahaa Afrika sababta ay dhigtay Bator 1 iyo 2 waa Bator 2 kani wuxuu u baahnaa spare baadkiisii waa la heliyay looma raadin wixii lagu raadinayay intii laga furfurayna meel la dhigay lama hayo hargeysa la geeyay soo celiyadii de wixii soo celiyay uu ku shaqeynay markii laga furay uu shaqeynay daaritaan baa ku jiray in la xoojiyo u baahnaa maanta wixii laga furayna lama hayo waxaan anigu ahaa ijiinta reefalkiis beertana kii lahaa baan ahaa odaygii afraad baan ahay meel danguuda maaha meeshu oo dadweyne iyo dawladba danguudu ahayd ma ahayn beer goradeedna ma ahayn waa beeri bartankoodii maalintii laga qodayeen waxaana la yidhi ilaahay halkan wax buu dhigay dadka ma uga soo saarnaa mise waan idin dhaafnaa dadkii dalkaanu jeclayna uga soo saaraan dhaafina uga soo saaraan anna aan ku noolaan ummaduna ha ku noolaato sidaa markii loo qoday waxa gacanta ku dhigay inama yaroo dhawaan ilaahay wax siiyay tarfalkana aan garanayn ayaa alla u dhiibay iyo wasaaradda macalinta iyo biyuuna ay ku wareejisay sida runtaa way naga eexatay wasaaradda macalinta iyo biyuhu inamada ganacsatay gacanta ugu geliyeen arrin haddaanu tabaniyo adduun haddaan tabanaba markaan inamadii la hadalno halkaa inaad gaadhaan wax la weydiisaanba maahabay sheekadooda noqotay dhalandhiilkiisu kuwaya haddaan xaggaa u soo dhaqaaqo idhaa ma istaarayana wala yaashkateynayo markaaba saldhig booliska ka haystay iyo ayaa markaaba la soo doonayay mayna idinku leedihiin baad moodaysaan baa lanagu celcelinayay mayhi anigu inaan yar mayhi dalka markii laga qaxay degta layguma sidin markii aan soo galnayna degta layguma sidin mar dhibaatadii ilaa tiisi aad baraxun iyo xun ku dhalay dadkii u soo joogay ka qaxay ka dhidhiyana intaa waan halgamayay markii alla na soo galiyana abaalgudkii arrinkii aan suganay ilaahay beertaydii buu deeceel ka soo saaro abaalgudkii dawlad kale uma shaqo tagin beertii uma ku soo noqdon gacanta saar abaalgudkii ceelkaas la iga dhigay anfaciisina deynama yar baan naga malowsaday marka waxaan leenahay dadka iyaga iyo dalka iyaga anagu inta u shaqeynanay waxa la nagu heshiiyay sheertii markaan xisaabteedii inaan ogaano doono indhaha la naga mariyaa inaad leedahay hamoodi markaa beerta anaa leh korkeygii hoosteeda wixii ilaahay ka soo saaray anigaa leh ee ma istaadhay waan oran karay cid ay timaadna waan ku saydhin karay nin dhibaatadii dee faqashta soo maray baan ahay oo dagaal iyo dhib iyo rabshidi waxay dhibta ay leedahan garanayo aan anigu socodjinay waxaan maanta leenahay dee mar haddii ay halkaa marayso xisaabna nama weydiin kartid biyana ma joojin karaysid ay martay meeshana malihida ay marayso anaa labaan leeyahay saak anaa labaan leeyahay wixii ilaahay ka soo saaray iyo beertaba anigaa le leegamana iibsan manaan iibin ummadda ma uga soo saarnaa baa lana weydiyo haabaan ummaddaanu jeclay dee ummaddiina haddii ay maanta noqotay kolbaka maamulka xilka magaalada ka hayaa aw noqday mayaad leedahay had moodaysaa dee ma jeclaanayno annagaba lanama jeclaba yaa nabadgelyaha lana siiyaan leena ummadda waan waraabin karayna intaana annaga waraabinay Bator iyo Boqor iyo Gabiley iyo taangiga Batoreed intaa magaalo iyo miyiba inta Gabiley gaadsan ceelashana ku filan annagana gacanta ku hayn waan canaadi karin ummadaydaanu eeganay ilaahay baanu ka baqayn sadkii aan ku lahayna ma helno indhaha la naga mari Bator 3 ijiinta reefalkeeda ayaan nagu ahay markaasi waxaan nii sheegayaa nimankaasi inay biyaha ay naga raaciyeen ay halkaasi ay naga goosteen wax ay noo ogol yihiin aanay jirin alaanna ay nagu haystaan wax alla wax noo ogol yihiin aanay jirin marka wasaaradda waxaan u baaqaynaa in si dhaqso ah qorshahaasi ay noo soo gaaraan waxyada ayay ka muuqataa anagii ijiinadiiba waan isla baabaanay sidaa darteed waxaan isku raacsanahay in ay wasaaradda macdanta iyo biyuhu ay degdeg nooga soo gaarto haddii aan reer Batoreed ceelasha nahay in aanu dhibaato ku shaqaala iyo ku aan ahayn dhibaataha biyahaasi naga haysta inuu aad u weyn yahay nimankaasi ninku hadduu yidhaaho waa mushqaayad wixii aan lahaa isiiya xadhigga loo taxaabayo la caburinayo caburin baanu qabnaa waxaanu qabnaa mushaharka oo cishaba intii la doono la bixiyo waxaanu qabnaa wixiina lagula sheer ahaa inaanay jirin ceelasha qaarkoodna aanay lahaynba
waxaanu leenahay motorta hoos aanay lahaynba ballantayadaana ahayd haddii ay ka baxeen annaguna waanu ka baxnay samsam waanu ka baxnay madax bannaani iyo dawladda oo wixii ay nagala qabanayso nagala qabata ayaanu u baahanna haddii si degdega haddii ay dawladdu wax ka qaban weydana annaga yaanu wax nala saarin biyaha iyo khayraadka dee roolkii ay ku lahayd way ka gaabisay wasaaradeen haddii ay wakaaladii biyuhuna way ka gaabisay iyaduna roolkii ay ku lahayd waxaan leenahay dadkii ganacsatada ahaa ee private-ka ahaa hantidii loo dhiibay waa taa dayacan roobku ku daayo cidna kama warhayso cid mas-uulo timaad ma aragno annagunbaa waxaanu doonaynaa in gacanta bulshada lagu celiyo biyaha oo dhiig miiratada lanaga qabto biyo meesha kuma cabno wax walba way naga xumeeyeen qoladee bulcadoona qabsatay awgeed baanu ka ashkatoonaynaa in dawladdu ama iyadu la wareegta ama gacanta iyadu ku soo celiso ama wakaaladda ku celiso dawliga ama gacanta bulshada inay ku soo celisaan dawladda